wararka, warbixinada, dhacdooyinka maalin walba si aad ula socoto waxyaabaha ka dhacaya guud ahaan geyiga Soomaaliyeed iyo caalamkaba. Fadlan nala soco oo subscribe saar channelkan Goob Waran Media. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir gudoomiyay shirka Golaha Wasiirada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya markii ugu horeysay. Shirka oo sidoo kale uu goobjoog ku ahaa isla markaana uu goobta fadhiyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa wasiirada dhammaan xukuumadda ay ka soo qayb galeen, iyagoo halkaasi ka jeediyay hadallo iyo soo bandhigid waxyaalihii uu wasiir walba qabtay. Shirkan oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoominayay ayaa wasiiradu waxa ay soo bandhigayeen waxyaalihii u qabsoomay muddadii ay xilka hayeen. Shirkan ayaa waxaa la sheegayaa in gabi ahaanba uu ku saabsanaa wixii dowladda u qabsoomay muddadii ay xafiiska fadhisay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirada uu shir gudoomiyay ayaa waxaa la filayaa inay ka soo bixi doonaan war-saxaafadeed ay lala wadaagi doono saxaafadda oo ku aadan waxyaabihii u qabsoomay dowladda muddadii ay fadhisay kursiga.